dibadbaxan ay aroortii hore saakay ka bilaabeen kumanaan dadweyne reer Muqdisho ah oo ay ku muujinayeen dibadbaxooda taageerada ay u hayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa si weyn badan u xoogeystay wixii ka dambeeyay 12 barqanimo hadaas oo ay ku soo bireen dibadbaxa qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo iyagu dareenkooda muujinayay iyo dibadbaxa sida ay uga qayb qaadanayaan waxaan difaacayaa anigoo dalka xoogga Soomaaliyeed ciidanka qaranka sido ahay sargaal ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan difaacayaa hooyooyinkeena iyo shicibkeena iyo dalkeena waxay doonayaan inaan halbo aan ula qaado waxaan iga soo bixiyay farunta dhiirigelin ay shicibkeena igiliyeen waxa ku kaliftay waxaana laga celinayaa hadda gaarigan saarnaa laga soo dajiyay inay shicibkeena waxay doonayaan madaxda sare ee ka lugta u saarayaan waxay arkeen iyo waxay uriyeen ayay u diidayaan inay baawuraha jidka soo maraan waxaan tuutaha u gashanay oo qoray qalabka u sidno waa wadankeena iyo caradeena hooyo inaan difaacnaa aniga shacabka ayaanu saraakiil u nahay saraakiisha dhammaanteedna waa inay go'aankaas way qaa'ilo qabaan dhammaan militariga dhammaantiis sidaas ayay qabaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed biliis iyo militari walaw nabad sugid waxaynu danaynaynaa shacabka Soomaaliya rabitaankooda cidii shakhsi askari u ah ma ahan qof muwaadina shakhsi askari uma ahin dalka iyo dadka ayaanu askar u nahay rabitaankooda ayaanu ku shaqaynaynaa haddayna faraan inaynu la wareegno dalka waa la wareegaynaa wax kasta shacabkaynu ku raacsanaynaa iyo hooyooyinka inta kadib waxa wadooyinka uu dibadbaxa ka soconayay soo gaaray abaanduulaha xoogga dalka Generaal Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan oo isku dayay inuu la hadlo dadka hase yeeshee dibadbaxayaasha oo si balaaranayay ayaa dhagaha ka furaystay warka generaalka dibadbaxayaashan oo xiray guud ahaan wadooyinka Muqdisho una diiday gaadiidka dadweynaha iyo kuwa ay leeyihiin hay'adaha dawladda ayaa u ogolaaday in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ay isticmaalaan wadada ayagoo sidoo kalena ka waramay dareenkooda ku aadan ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM waxaan inta kale u joojinaynaa dantooda ayaysan garanayn waxaan ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM u fasaxnay waan ugu garab waa kuwa iskaashanayno dalka aan rabno inay mira ka dhaliyaan oo la diiday noloshiisa la diiday noloshooda inuu kala diiday waay ra'iisul wasaare Farmaajo isma casili karo hadduu doonaga anaga soo noqon garab taagan ha ka noqdo anaga garab taagan 24 hours anaga soo jeedayna fikirkeena Farmaajo waa ninka kaliya ee isku dubariday dawladdan macquulka dadkan kalena ma doonayaan dawlad macquul waxay doonayaan inaan ku jirno sida 20 sano kana yeelmayno waxaanu garab taaganahay Farmaajo bismillaahir rahmaanir rahiim anaga maantay maalin weyn weeye waa maalin shacbiga Soomaaliyeed haween hadhiin caruur hadhiin dhalinyaro hadhiin waayeel hadhiin ciidan hadhiin mas'uuliyiinta dawladda hadhiin maalin la soo wada raacay weeye waa maalin aad u faraxsan lahaa weeye kadib badbaxaysa marka waxaan kale baxaya ninka kaliya maanta iftiinka noo bixiyay oo ifka la siiyay in lagu istaago ama lagu tunto waa qalad waxaan leenahay han noolaado isagana madax noo ah saacadan laga bilaabo ninka loo raali aan ka nahay ma jirto maalintii oo qabsada Farmaajo waa ninka yiri ninka dil hala toogto waa ninka sharciga hirgeliyay laakiin inta dadkaas ay wadanka hayeen wax cadaalad ma aan dareemin maanta cadaalad aan dareemin mushaarka ciidanka la siinayo nabadgelyo dhaqaaq ma doona Farmaajo aan doonayna haduu dhacan wax jiro oo Soomaaliya ma jirto madaxweyne ma rabna oo dawlad ma rabna wax rabna ma leh nin walba ha noqoto isku mataliso ciidamada xoogga dalka ayaa biyo ayacbaan u dhaamiyay dadweynaha kumanaanka ee dibadbaxa ka dhigay Muqdisho kadib markii ay kululaatay cadceedu waxaan ku soo gaarsiiyay biyaha waxa weeye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan waday kadibna banaanbaxa markaan arkay shacabkii Soomaaliyeed ayaan siiyay waxaan u siiyay dalkooda iyo dalkooda say u rabaan way difaacaan lahaayeen dadka ka soo horjeeda
bay inay diidan yihiin ayaan annaga waxaan noo qorshaysan ummadda Soomaaliyeed oo shacabka waxay diyaar u tahay inaan diyaar baano ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarzan ayaa kula dardaarmay saraakiisha xoogga dalka in aanay siyaasadoobin isla markaasina aanay lumin ciidamada xoogga dalka hadafkooda ahaa in ay ilaaliyaan amniga dalka difaaca dadka iyo diintuba annagu aragnay marka 20 sano arintan dhex socota shacabkeeni waa baabay dadkeeni waa baabay guryaheeni waa baabay faqri annaan u baahnayn baan la baday faqri annaan ahayn baan la baday inaan ku noolaano yaani dulli waana la duleeyay dulli baan la baday ma aragtay marka dulligaasna dadka u soo bixi kara oo ka qaadi kara waxa weeye waa militariga ummaddu markay sidaan oo kale ay tiiha ku dhacdo oo jahawareerku ku dhaco ma aragtay meel loo dhaqaaqo waayo ummaddu kaligeed hal mar ma wada hanuuni karto ummaddu marka waxay rabtaa dad ka saara waxaanay rabtaa marka wixii ka saari lahaana waxa way militariga ugu horeey waad aragteen Masar hadii la sii deyn lahaa shacabkii markuu kacay hadii sida lagu sii deyn lahaa oo uusan militariga gacanta ku dhigi lahayn magaalada dhan waa burbur lahayd wadankan oo dhan waa burbur lahaa waa laga kala carar lahaa wax joogi lahaa male ajnabigan waa ka baxayeen markaas way ka wada baxeen marka waxa la rabaa in militarigu uu maaragtay horseed ka noqdo maaragtay maslaxada ummadan militariga inuu horseed ka noqdo inuu dareenka ummadda inuu ilaaliyo masaalixda ummadana inuu ilaaliyo maaragtay militariga in la siyaasadeeyna maaha inuu siyaasad galana maaha waa inuu maslaxada wadanka uu hayaa ummadana inuu isku hayo marka awal asbaabta wadankeena u burburayna oo ugu weyn waxay ahayd militarigii baa la siyaasadeeyay booliiskii baa la siyaasadeeyay maxkamadihii baa la siyaasadeeyay markaas wadankii dhamaa wuxuu ku istaagay hal qof buu ku istaagay institutionadii meeshii institution laga dhigi lahaa ayaa institution laga ma dhigin wuxuu noqday militarigii baa wuxuu noqday military beelad booliiskii baa wuxuu noqday booliis beelad maxkamadihii baa waxay noqdeen maxkamad beelad markaas halkii qof markii meeshii uu ka baxay ayaa wadankii dhamaa saas u soo dumay hal mar soo dhacay hal tiir uu ku taagna laakiin institution noo dhisan haduu jiri lahayn haday maxkamaduhu independent ahaan lahayn hadii militarigu uu siyaasadda ku jiran qaranka ilaalin lahaa militariga wax kasta qaban lahaa waa joojin lahaa marka siyaasiyan qofkii loo dhiibana ummadda u dhiibatay dhiilahayn markaas laakiin haddana situationkii ayaan ku dhownahay marka waxaa la rabaa maaragtay in militarigu uu maaragtay aagagiisa hadda uu ku jiro dareenka hadda socdo waan arkaya mudaaharaadka hadda dadka joogay baan la soo hadlay jidadkii baa la gubahayaa shalaan dhisnay runtii meesha hadda labada taayir ku gubanayso maanta ay Muqdisho ka sameeyeen dadweynaha reer Muqdisho ayaa marna waxaan saameyn ku yeelan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ay sheegeen in markaas ay wadooyinka u fasaxeen ay mari karaan halka ay ka soo horjeesteen in xildhibaanada iyo dadka kale ay u diidaan wadada xasan matoore telefishinka qaranka Muqdisho